maamulka degmada Boosaaso ayaa ka warbixiyay burbur xooggan oo ka soo gaaray wadada laamiga ee ka baxda magaalada Boosaaso roobabkii maalin ka hor ka da'ay magaalada Boosaaso iyo deegaanada ku dhow duqa degmada Boosaaso Xasan Cabdallah Xasan oo booqday qaar ka mid ah buundooyinka wadada ee burbura ayaa kadib waxa uu la hadlay warbaahinta isaguna ka warbixiyay khasaarihii ay geysteen roobabkii da'ay waxa dumay oo hadda wadadii laamiga ka go'an tahay ugu yaraan 6 buundo ama 6 biyo mareen meelaha oo turbiinka dhulka la yiraahdo biyo hoos maraan ayaa dumay taas oo ay u sabab tahay roobka oo xoog badnaa muddo badan da'ayay iyo meelahaas oo muddo hore oo hadda laga joogo 20 dhowr sano la sameeyay dhanka kale marka laga soo tago dhibaatada ay roobabkani u geysteen wadooyinka waxa ay saameyn dhanka hoyga ay ku yeesheen dadka barakacayaasha ah ee ku leh kaamamka gudaha magaalada Boosaaso Xuseen Xasan Xuseen Xuska Somali Public Radio SBR Boosaaso